cabdicasiis lafta gareen oo hore aan idinkugu sheegay inuu ku jiro ataxiyaadkii siyaasadda caawa isdhiiba odaga big news wuxuu garow u ordo iyo wuxuu abi axmed naf ka raadiyaba ama darbiyada madaxa ku garaacaba odaga caawa isdhiibay murashaxiintii madaxtinimada koonfur galbeed oo shariif xasan sheekh aadan ugu horeeyo wasiir jaamac mukhtaar robow ma hubo dhammaantood beri ayay ka degayaan waa raggii hadda ogow ama xasuusnow xildhibaan xataa doono waay ee xarigga loogu hajabi jiray qaabkay wax u socdaan dhammaan siyaasadda ku aadan koonfur galbeedna caawa qodobka koowaad ee barnaamijka oo aad u xamaasad badan ayaynu ku qaadaa dhigaynaa qodobka labaadna waa laygu wareeriyey ciyaal weero dhulkii abgaal ka dilaacday ciyaal weero 40 san ninka weyn horta ciyaal weero maaha waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed kolley abgaale gaar u qosaysa deegaanadooda oo ciyaal weero laga yaqaanay inaan runta u sheegan rabaa runta runtu dadku waa dhigtaa laakiin inaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo bulshada abgaale xamar joogto inaan runta u cadeeyaan rabaa qaybta labaad ee barnaamijka tan igu dhigay caawa xamaasadda siyaasadda koonfur galbeed caawa way karkaraysaa haye waxaad xasuusataan cabdicasiis lafta gareen in qamaar siyaasadeed uu u dhigta farmaajo 15 May maalintii la kala guuleystana cabdicasiis waa ku jiifay ee raganimo iyo taal buu iska sii raadinayay ninka Ethiopia u tagay DDS u tagay Abiy u tagay hadda ugu dambeysay garow u tagay intaas markay socoto marka ama intaas markay dhacday bal sheekada muhiimadeeda rabaa iyo wax hadda socda inaan idin sheegay shir dib u heshiisiin koonfur galbeed ayaa lagu dhawaaqay oo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe oo habeenkii labaad hadda Baydhabo ku hoyanaya uu ku dhawaaqay intaas kor waxaa jirtay in siyaasiyiinta koonfur galbeed aysan tagi karin deegaanadooda labeenti koonfur galbeed xulka koonfur galbeed aqoon-yahanadii koonfur galbeed in dheer garadkii koonfur galbeed siyaasiyiinta koonfur galbeed ee la jamada ahaa deegaankayga ma imaan karaan nin qura ayaa koonfur galbeed xirtay shakhsi oo matalaadii shacabka iyo aqoon-yahanadoodiiba ka hor istaagay ciddii taageertan uu xiray ciddii Facebook qoraal ku soo qorto cabdicasiis lafta gareen xarig waay ama waaba dil habeen madow la dilayba safiirka Mareykanka ayaa marka wuxuu taageeray dadaalada dib u heshiisiinta oo uu wada kusimaha madaxweynaha Soomaaliya Aadan Madoobe ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee sharciga gudoomiyihii marka waxaa ku taageeray Mareykanka oo dib u heshiisiin in loo qabto siyaasiyiinta koonfur galbeed oo ay ka niqaashaan ama ka xaajoodaan khilaafkan baasan oo aan ka jirin maamulada kale cabdicasiis waa ka dhaga furaystay baaqi ama war-saxaafadeedkii Mareykanka ay soo saareen kii gudoomiyihii baarlamaankana xataa xuduru ku soo dhaweyn waayay intaas kadib maxaa dhacay gabadha u qaabilsan Ingiriiska Soomaaliya ayaa u tagtay cabdicasiis oo runta indhaha ka saartay waxa la yiri intaan dib u heshiisiin la gelinba ciidamada aad dadka ku caburiso ee mataqaan dimuqraadiyadda ka dhan ee aan fikirka xorta shacabka iyo siyaasiyiinta aysan soo gudbisan karin waa wax u muuqda rejiim waayal ciidamadan Ingiriis baa tababara waana sax ciidamada koonfur galbeed booliskooda iyo militarigooda mishaarka waxa siiyay Ingiriiskana tababara mishaar kuma dhiibi karno caburin siyaasiyiin iyo shacab ayaa horta dhagaha lagu dhibciyo odaga markaasuu waagu bariyay lafta gareen waana inaad aqbashaa baa lagu yiri wada xaajoodka uu horboodayo gudoomiye Aadan Madoobe qasab waay hadii kale mishaarkana waa jaranaynaa kumana aqoonsanin dhaawac siyaasadeed oo weyn waay horta sheekadan Ingiriiska fuliyay waayahay waana siyaasadda ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ee Soomaaliya waxay gabadhan ku hadlayso lafta gareen dhammaan shuruudii wuu aqbalay wada xaajood marka waxa ugu horeeya la yiri horta caburnaanta siyaasadeed iyo mataqaanaa xoogga iyo xarigga iyo dilka waxaas waa dhaqankii dictatorka lama ogolaanayo Aadan Madoobe kulmeen saakay intii gaalada u sheegtay iyo intii labadooda walaalnimo walaalo ah ee isdhaafsadeenba waxa soo baxday in mas'uuliyiintii iyo labeentii koonfur galbeed ee bari diyaaradda raacayaan marka caawa qalad buu odaga galay oo hadda xaajadiisa loo fadhiyo
ninka maxamed ibraahim fargeeto oo weliba murashaxiinta koonfur galbeed ninka ugu cadcad ah wasiirka maaliyadda dowladda xasan sheekh waqtigii hore ahna caawa gurigiisoo ciidan ku hareereeyey ninkii lafta gareen ah waa ninkii safiirka maraykanka la hadlay oo gabadha ingiriiska la hadashay oo aadan madooba uu la fadhiy al dhib badana aadan madooba u sheegay fiiri waxaa la ragga soo socdanay ciidamo inta ku leeyihiin aa layidhi beelay ka dhasheen ciidamana waa soo wataana layidhi oo diyaaradaha la saaran ma qoro taagtaag iyo rasaas iyo marxalad aan qurux badnayn baa dadka reer koonfur galbeed tusnaa mise dad mas-uuliyiina naaya inaan xaaladda dejinaan tusnaa waa ogolaayey taasi maxay dhaxasha marka in berito siyaasiyiintii koonfur galbeed ay beri baydhabo ka degayaan berito ay ka degayaan waayahay intaas marka waxaa ku soo afjarna hankii iyo hamigii cabdicasiis lafta gareen ee abiy axmed uu garab ka raadinayay ama deni uu garab ka raadinayay mar haddii la yimid marka oo siyaasiyiintu imaadaan oo baydhabo lasoo wada cag dhigto ama mansuurna waa imaan doonaaye markaa dee doorasho in la aado waa lagu qasbaya iyadoo beesha caalamku ee cabdicasiis gadaalka riixaysa ay dhees maya saan ma jirta saaxib maya waa guul ummadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u soo hoyatay waana dadaalka keliya ee lagu horumarin karo phase 2 qorshaha madaxweynaha xasan sheekh maxamuud u dhegan ee jubbaland iyo koonfur galbeed shabaab looga horeynayo dalku waa guulaystay intaas oo update ah qodobka koowaad barnaamijka ayaan ku falanqeynayay haddaad fahamtay oo la dhacsan tahana muuqaalkan sii sheer gare oo like saar aragtidaada ka dhiiba guusha caawa madaxweyne xasan sheekh maxamuud u soo hoyatay waa guul weyn madaxweynuhuna xasan sheekh dee nin sahlan maahane cabdicasiis waqtiba la iskaga dhuminba waayahay ciyaal weero waa iga badbateen deegaanka keliya ee aniga aan ka soo jeedo ee xamar weliba beesheedu degan tahay ayay ku bateen waxaan rabaa codsigayga saraakiisha ciidamada iyo madaxweynaha iyo duqa magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir madaale in aad gaarsiisaan waan ogahay way yar tahay cidda keliya xaqa banaanka la imaan karta waa ogahay inay yar tahay laakiin at least gacantaada uga qayb qaado gaarsii anigu aqbali maayo 40 jir iyo 50 jir tooreey baskoolada ku hubaysan ayaa ciyaal weeraa ciyaal waxa uu aqaana wixii 20 sano ka yar waxay doonaan ha noqdaan 16 jir 11 jir 19 jir 20 xataa 21 xataa aqbali karnaa 40 jir tooreey gabar mobile uga qaadanayo 50 jir macawiis wiil uga furanayo tooreey abgaalo wallahi ciyaal weera maaha marka waxaan rabaa muhiimadeeda marka taas waa ka wada dharsanaysan ciyaal ahayn ciyaalkan yaa taageero anigu inta aan hadda xaqiiqda haayo oo aan rabo caawa inaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan abgaalkii aan ka dhashay Cismaan aan la wadaago ciyaalkan booliiska gobolka degmooyinka ayaa dirsada igu wallahi igu billahi igu tallahi waa gardar garab oo ciyaalkan hal habeena madax lagu dhufo kara madax waa booliiska hab kale ama tactic kale oo ay ku shaqaystaan oo ummadda ay ku dhacaan mar haddii ayaga wajiyadooda la aqoonsanayo oo dareeska ay wataan ama isla ayagiiba inta dharka dhigtaan ee macawisle waxay iska dhigaan nimankan ciyaal weer oo macawis iyo shaal inta xirtaan ee ciyaal weer iska dhigaan waaya intaas anagu ka dharagsan warka ugu naxdinta leh qof muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho is weydiinaya maxay ciyaal weerada u dhamaan laadahay waa idin sheegay duulka ay la shaqaystaan ama ciidaha ay la shaqaystaan waa booliska isla booliska iyo militariga waa markii la qabto la xiro lama xukumo $200 EFC lagu diraa isla waa la soo daayaa cunugii ciyaal weerada ahaa marka shacabka iyadoon lagu ciyaareynin beesha abgaal oo dharkeenley iyo wadajir iyo waabari iyo kaaraan iyo cabdicasiis ay waxaan ay ka jiraan inkastoo Daniel 4 ciyaal weerar laga sheegay waa la soo dhameeyay gudoomiyaha degmada Daniel ku mahadsan Ilaahay ka soo waa ku mahadsan waana nin fariida gudoomiyaasha degmooyinka abgaal waxaan leeyahay shacabku way ka dharagsan yihiin laakiin awood uma laha in inta banaanka imaadaan ee wax walba waxay aan ii sheegayaan waa idin sheegi karaan duruufo amni ee u jira awgood waxaan leeyahay booliiska ku adeegta markay la xirana booliiska soo daaya marka shacabku anoo afkooda ku hadlaya gudoomiye arintan kala xisaabtan gudoomiyaasha degmooyinka eeb diin la'aan dhaqan la'aan dal la'aan bay ciyaalkan matalaan waana ka halis badan yihiin argagixisada al-shabaab ka halis badan yihiin sababtoo shabaabka markuu wax dilo wajigiisa waa qarsadaa oo lamaba arkaba 6 bilow ka maqnaana cunugan gabadha mobilka ka dafaaya gabadha yare kaaraan joogto waxay xaq u leedahay inay mobilkeeda ku raaxaystay xaq u leedahay gabadha cabdicasiis joogto waa in taleefankeeda iPhone 14 iyo 12 waxa haysata ee xaq u leedahay inay ku raaxaysato
oo ayadoo maqaaxi ku jirto reerkeeda kula hadasha dal iyo dibad maaha inay gabadha abgaalaya sida ay gun u noolaata maaha abgaalow waxba madaala hadduu intaan fariinta hadday gaarto waxba hadduu ka qaban waayo abgaalow nima wax gartaa tiin shabaaba iska dulqaadeene ciyaal weero madaxa laga wada jaro ciyaal weero habar dhashana male habartii wuxuu soo dhacay quudataa odaga dhalana waxay soo dhacaan uu quutaa booliiskana waa ku garab siiyaan beel ahaanna inaad u istaagtaan oo dadkiina iyo dalkiina aad xoreysataan si lamida aadaya balse u xoreysateen baan idinkaga fadhiyaa intaas ayaana barnaamijkayga caawa kusoo gabagabeynaya tan inta barnaamij noocan aan ku kulmi doono waa boosko idin leh sidaa iyo nabadgelyo